golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta magaalada Muqdisho ku yeeshay doorasho ay ku samaysanayeen ama ay ku dooranayeen hoggaan cusub oo uu yeesho baarlamaanka dalka iyadoo doorashadaasina ay ahayd dhowr qaybood isla markaana lagu doortay gudoomiye ku-xigeen iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad laakiin doorashada gudoomiyaha baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya sida uu dhacday waxa warbixinta nooga diyaariyay wariyahana Bashiir Khaliif Gani kuwanka maanta xubnaha baarlamaanka Soomaaliya waa kalfadhiga koowaad fadhigiisii afraad ayaa waxa soo xaadiray xubno gaaraya 228 xildhibaan inkastoo ay gadaal kaga soo korortay tiro hor leh oo ay kamid ahaayeen kuwa goobta lagu dhaariyay waxaana shirgudoonkii kumeel gaarka ah General Muuse Xasan Cabdulle iyadoo ajanduu ahaa doorashada gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa xilka gudoomiyaha baarlamaanka ayaa waxa u taagnaa musharaxiin gaaraysa 5 xubnood halka ku-xigeenka koowaad iyo kan labaadna ku dhawaad 20 mudane waxaana lagu galay codbixinta oo ahayd mid qarsoodi ah wareegga koowaad markii uu wadlaaday ayaa waxa musharaxiintu kala heleen codadkan Professor Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa helay codadka 119 xildhibaan halka Professor Ali Khaliif Galeerna uu helay 27 cod waxaana Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo isna kamid ahaa musharaxiinta ku tartamaya xilkan uu helay 24 cod halka xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidigna uu helay 10 cod xildhibaan Xasan Abshir Faarax waxa mudanaha ugu codka yaraa ayaa isna helay 5 cod intii aan loo gudbin wareegga labaad ayaa waxa dhammaan musharaxiinta kale ay ku dhawaaqeen inay ka tanaasuleen xilkaasi taasoo keentay inuu ku guuleysto musharaxii tirada ugu badan ku hogaaminaya baarlamaanka Professor Jawaari waxaana natiijada goobta kaga dhawaaqay shirgudoonkii kumeel gaarka ah General Muuse Xasan Cabdulle gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka Soomaaliya Professor Maxamed Cismaan Jawaari oo hadalka qaatay markii uu ku guuleystay kadib ayaa u mahad celiyay musharaxiinta sida ay u tanaasuleen waxaana ammaan u jeediyay xubnaha baarlamaanka oo tilmaamay inay muujiyeen hawlkarnimo doorashada gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ee maanta sida guusha ugu dhamaatay magaalada Muqdisho ayaa ka dhageysay Soomaaliya mid cagta saartay wadada horumarka isla markaana dadkeedu u jahaysteen samata bixinta dalkooda ahaatee waxa cusub mudan in horay bilii isxigay ee aan soo dhaafnay ay ku guuleysatay ka bixida kumeel gaarka ah ansixinta dastuurka iyo hawlo kale oo muhiim ah dib u yegleelida qarannimada dalka Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya Mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa ugu hambalyeeyay ciidamada qalabka sida